إنه يسكون مادنه مرجع واحد توصي سا إن أرنتنا يتهرن له أرن قرن هاي صدقان قدر بالله يحضي بقى قدر كان فيروس كا ساو دم وينو شيء وحوي وينو أمر هذا قادنا ووحي تلوينا كتما ضعف ما كان يقول له سميه الله waxaan ku darayaa waan anu mahadnaqayaa imaanaadka inoo soo gurmaday waxaan jecelahay gudidu inay meelo badan ay macaawino weydiisaa arrintan adduunku waa arrin midaysay baa weeye oo loo kala sareynin waxa WHO da waa nala jooga xafiis baa ku furan yahay halka waxa weeyaan loo yeeraa oo wixii macaawino u baahan la weydiistaa baa weeye taas waan ku dar lahaa waxa kale oo ku dar lahaa in civil society نجاد iyo Sonia iyo Sonsof waa inay furan center telefoon ah oo qofkii xanuunsanaya waxa laga yaabaa inaanu dhakhtarada aqoonin telefoonadooda meesha ka fog tahay oo qofku ku soo diro telefoon ilaa halkaasaan joogaa waan xanuunsanaya isku tago oo inoo fura centerka hadii la yiraahdo oo sida 99 oo kale ka dabka oo kale ah in la fura weeye oo dadka xanuunsanaya ay la soo xiriiraan tagay waxaan ku darayaa naxariista dawladuna waa in naxariistaa cashuurta intaas ka yaraysaa waqtigan magaranaysaa kulul taajiriinta iyo jaararkuna inay wax la istaraa oo ay dadka xogaal u noqdaan oo naxariistaa ma yana barinaa culimadiinka waxaan ka codsanaynaa in masaajidada joojiyaan xaramkii baa la xiray xaramkii salaadiisu boqol kun laaheed ayaa la xiray marka ma ogtiino masaajidada ma helaan nadiifad badan ma helaan waxa la wiiga mar la xaara laga yaaba halkii gacanta shareeta misaare adna wad saaraysaa aan labada jibcad dawmaan u tagin ma ogtahay waxaan jeclahay inaan nolosha ka horeysa magaranaysaa cibaadada meel kasta ilaahay wuxuu nooga dhigay masaajid waxaan leenahay masaajidada ka daaya sida loo xiray xaramkii adduunka oo looga xiray masaajidada ka joojiya dadka ugu yeerisaan qofka soo gurigiisa ku tagaday aan lahaa tan waxa jirta Soomaaliland madaxweynuhu horta meel fiican buu dhageeyo iyo gudoomiyaasha meel fiican bay dhigeen Soomaaliland waa wadan qaran ah waa jamhuuriyad bawey maryaha waxa socota sheeko caruureed in tuusa inaanu inaga iyo nimanka reer Soomaaliya aynu siba wada fikirin waxaana sheekada oo horseedo oo wadan kale ilaa khayr ma waxa leeyahay wada hadalada Soomaaliland la ixil saaray oo waan hageysaaban tagayaayo saaw sheegay baash ana irira holay ogol yahay war kuma ogolin inay yoo yar Soomaaliland wax khayr oo soo qaxay ka weyn nidaam baa jira institution baa jira oo ogol in wada hadalo Soomaaliya in kastoo ay ahayd qalad oo maanta Soomaaliya wax ay naga dhaxeeyo dhibaatooyin ma jirto waxa wadamada wada hadlaan marka kala bixi waayaan yaa la xabada hala joojiyo dimashada hala joojiyo markaas hala dhexdhexaadiyo adana waanu kala baxnay dawladii maxamed saad baa ugu dambeysay dawlad ka tamarsan Soomaaliya ilaa hadda dawlad ma aha Soomaaliya maalinba 4 sano wala imanaysa waxoogaa lacag urursanaysa ay isbedelaysa waxa weeye Somaliland adeero dad baa u dhintay maalinta inaan raxan weyn oo hadlaysi ولا هو إنه ما كيشي كنسي يعني وحين صوم مريبا إنه ما كان ما حسوسنا واحد قد بيسيتيو محمد سالم إذا عاد سكشيجيو وحلا وقع وانا يدو عيارتي جوالك جوالات هذول ودك وكم مغنين تيبا إنه ما كقول بيسور بعض هذا الوحوي مدحونه عدي وانا عدينا سومالي هذا مركور الله بلوني إنا ولا هذا الله ديار بنونا هاي وفقار الله هذا international community شوتو لكن واحد مقارنة ساعي سنادين لا راح عليه عيالك عيال سومال وحاس كوك عين مايسو وحلينا يقفك سومال وين دونينا دشنتي هكينو إسماعيل عمر قال وحليه هذا سومال وين دوني سو يوكم وديار ما هني تجوتك أبي أحمد كان ورمضان أيام كان رئيس وزراء وحلينا هذا دون سيد الصومالية استوبي وحوض قبصدان سويت دار كلك الشنط وشنتي صومالان صمينو وأنا وشنتي صومالي هل ضلا أنا ما كان قريب من الانتجريشن كان ما كان ساعي هونك أفريقيا لكن كذا كان هاي السنة الصومالي كدرية أدوه في سويدينية
wartalo Ethiopia oo markii horeysay Oromo madax noqotay toon badbaadi doonta under the Oromo leadership ya ma Ethiopia ma sii jiray gudaha isweydiinaya isna wuxuu leeyahay Soomaaliland Soomaali ku daraya ana waxa weeye mowqifkaygu hadaan nahay ucid wada hadalada wadamada safka hore ka soo qayb galimaya Djibouti ka soo qayb galimayso yaan ku talina Ethiopia ka soo qayb galimayso Kenya ka soo qayb galimayso Eritrea ka soo qayb galimayso laano interest gaar leeyahay laakiin waa ogol lahay in meel fagaara ah neutral countries in ka soo qayb galaan Afrika wala lagu bilaabo taabka waxaan leeyahay adeer Muqdisho quuso taada ka shaqeey tiina ka shaqeey أنا وحبان قبسنا الحمد لله رب العالمين إريتريا صدّن سنة غوريسيتي صدّن سنة ويدمنسي وشباب غابيين وإسخلافيين they never gave up أنا واحد ليه صدّن سنة ما حكاهم عليه جماعة سميستة دول كاجي بتشوكته حني يحن لقوا ما الله برندل لقوا ما صار صارين وحيد يكون عمل إلودين العقد هو يدو حيث العقد بركم من قشنشر ما بينكم كي يصور عائلة باريان ما أكثر خانة كويشرته هذا الواس حريسين دولي بقى إلهي نجا قاضي دولي جهسوا 20 هذه الصومالي واحترس إيه سجاجينها يا الله راحت له ما يجرى قال كعية اللي بده كشرة بدنا لان بصوب حيود كلام صد هذا حاجين كشرين ما قال عليها الصلادين تروح عليها لأنه الصلادين تيانو قالي خيروا ذيك الشقين جرين سووا ذيك الشقين عاقلين خيروا لما نقول برهير كودو حكو صانه هالعادي أيها سياسة انترناشيونال جلي صلادين أدو في عنو صف عنو هذا شوي جرتا هذه أد مرة قاعد في عين السودان برا قدام بيجي السودان محمد باكري السودان واحد شارع عبد الرحمن صف عن بيوهذا صلادين كلا إذا أي أردو كلام السبر حتى محلينا هاي تورد حق بوليدينا هذا الشانو مرة دانو شرعي بتشرين شرعي قف كيس وما لا تكون حد قد بقى تريتر نقطة haddaan halka lagu toogan jirin qaar lagu toogan waxba noqon meen dalka loo referendum loo sameeyay ee loo dagaalamay ee loo dhintay qofka intuu iska hadla yiraahdo midnimo waa traitor waa sharci laga soo saaraa waa in sharci laga soo saaraa isagoo maqan la xukuma sharci Bangladesh waxay qabatay 25 sano doondoonisi ay qabato la diliyeen qofka uu ka maqan baa la xukuma ma markuu yimaadon sharci baa laga soo saaray insha Allah ta'ala waxaan leenahay kan golayaashana maanta dee waa solidarity oo waxba iska sheegi meeyne ilaahay khayrka inoo badiyo subhanahu wa ta'ala khayrka ilaahay inoo badiyo ilaahay ficilta kale ilaahay naga joojiya madaxweynuhu bariyaha uu suray ilaahay isna ugu wado